xaqiiqada adag waa tan haddii aad qorshe lahayn waxaad qorshaynaysaa inaad fashilanto dadka badankood waxay rabaan inay guulaystaan laakiin ma haystaan qorshe waxay rabaan inay natiijo gaadhaan laakiin ma haystaan jihada noloshu waa safar haddii aad safar ka gasho adigoo haysan meesha aad u socoto ma gaadhi doontid meel saxa sidaa la mid oo kale guushu ma timaado nasiib waxay ku timaadaa qorshe cad lagu daray ficil joogtaa maanta waxaa rabaa inaan kula wadaago 5 qodob oo muhiim ah oo kaa dhigi kara qof qorshe leh kuna guulaystaa noloshiisa ku soo dhowaada goofga podcast magacayga waa ciid haddaba haddaan mawduuciina gudagalno 5 qodob ee muhiimka ee mawduucan qodobka koowaad qorshe jihada noloshaada qorshuhu waa sida maab wuxuu ku tusinayaa run ahaantii meesha u socoto iyo meeshaad ka imatay wuxuu kaa ilaalinayaa jahwareerka wuxuu kaa dhigayaa qof run ahaantii himiladiisu cad yihiin qof aan qorshe lahayn waa qof ay dabayluhu layaan dabayluhu wataan haddaba maxaa xiga qodobka labaad oo muhiim qor himilooyinkaaga write your goals maskaxda oo keliya ha ku haynin himilooyinkaaga qor himilo sare oo cad wakhti u yeel ood qabat himilooyinkaaga u kala jabi tallaabooyinkaaga yaryar ruhaantii tallaabo yaryar saad u gaadho himilooyinkaaga laakiin qorista oo keliya kuma filna inaad gaadhid himilooyinkaaga maamul wakhtigaaga wakhtigu waa hantida ugu qaalisan ee bili'aadanku haysto ka fogow wakhtiga ruhaantii waxaa kaa luminaya samee jadwal maalinlaha mudnaanta sii waxa ruhaantii muhiimka haddaba haddii aad ruhaantii maamusho wakhtigaaga haddii aad ruhaantii maanta wakhtiga aad maamulaydo wakhtiga ruhaantii isaga ayaa ku maamuli doona haddaba qodobka afraad waa muhiim ficil joogtaa qorshe lagu dara ficil la'aan oo ficil la sameeye wuxuu dhalaa riyo tallaabada yar aad maanta maalin kasta aad samayso hana sugin inaad noqoto wakhti perfect ma jirto wakhti perfect oo kuu imanaya ma jirto hadda bilow noqof run ahaantii wax joogteeya wax hora guushu maaha run ahaantii inay hal mar run ahaantii la sameeyo imato guushu waxay run ahaantii ka dhalataa waxyaabaha run ahaantii ilmaqabata ee maalin kasta aad samayso qodobka ugu dambeeya la soco horumarkaaga la soco oo hagaaji qorshahaaga qorshuhu ruhaantii ayaa kaa dhigi karaa mid nool haddaba qiimaha ruhaantii horumarkaaga sax khaladaadkaaga la qabso ruhaantii xaaladaha kuduwan ee nolosha qofka guulaysta waa qof run ahaantii hagaajiyey khaladaadkiisii arkay qiimaha horumarkiisa haddaba maaha inaad sugto nasiib ama fursad waa inaad ruhaantii dhistaa qorshe cad waa inaad ruhaantii abuurtaa maanta fursadda inaad ka faa'iidaysataa haddaba ugu dambayn mawduuciina maanta oo mawduuc aad u muhiimsan haddii aad rabto guul qorshe samee wax qor ficil samee joogtee hagaaji ruhaantii himilooyinkaaga bilow maanta xitaa hal tallaabo sababtoo ah noloshu ruhaantii aad rabto waxay ka bilaabantaa qorshaha maanta aad samayso waad ku mahadsantay si fiican u dhegaysateen ku qora kommentiga qorshe ayaan bilaabaynaa